ku dhex jira kooxdan xidigaha geeska dhanka kalena ciyaartooyda da'yar ayaguna ku dhex jira kooxda saxaafiyiinta Somaliland kubadaasi waa ay socotaa si habsami loo qurux badan ayaa u socotaa kubada calaamadaha offside ayaa uu qabtay si habsami loo qurux badan ayaa ciyaartu socotaa way socotaa kubadaas maxamed ayaa kubadaasi isagu wada maxamed kubadaasi oo ilig kubadaasi way ka dheeraatay mursal muuse cumar mursal muuse cumar oo isagu bedel qaybtan dambe ku soo galay ciyaar xamaasad leh waa ciyaar dhammaanba ay iskugu yimaadeen ragga hore u ciyaari jiray kubadda cagta ha ahaadaan suxufiyiinta Somaliland ha ahaadaan kooxda xidigaha geeska waa gooliye eber ay ku gacan sarreeyaan kooxda xidigaha geesku waxaan eegi doonaa in ciyaartu sanay ku soo ilaato oo koobka la guddoonsiiyo kooxda xidigaha geeska iyo in xagga dambe iska bedesho oo ay barbar keeni doonaan kubadaasi waa ay socotaa cabdigood waa ku kacsan yahay oo ciyaar gool yeber ayaa ciyaarta lagu leeyahay saan arkaynaba waynu eegi doonaa bal waxa ay kala calfaan qaybtan dambe boqolle cabdigood tababar cabdigood daawadayaal sidaad la wada socotaanba waxay True Cable TV idinku heelan tahay in ay idin soo bandhigto ciyaar kasta oo dhacaysa oo idinku soo gudbiso sida ugu quruxda badan sida ugu munaasibsan iyo waliba si kasta oo idinka idin raali gelinaysa qaybta VIP-da garoonka waxa iyagu ku sugan marwadii koobaad ee madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Somaliland mudane maxamed xaaji ibraahim cigaale oo naxariisto sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha cabdirashiid dhanka kale barasaabka gobolka buraale iyo sidoo kale xildhibaan nacnac waynu eegi doonaa waxay kala calfaan anshax ayaa isagu ku noqon doona oo bedelkaasi isagu geli doona ciyaartu ciyaar la saadaalin kara maaha waa ciyaar xamaasad badane cabdigood uu yaaban yahay si habsami loo qurux badan ayay ciyaartu u socota kubadaasi qurux badan ayay u socotaa waa fursad u qaaliya oo kubadaasi waa laga soo gaaray dhexda ayay maraysaa kooxda suxufiyiintu waxay rabaan inay iska keenaan bal goolkan iyo gashabagooda taabtay ee lagu leeyahay inay iska keenaan dhammaanba way yaaban yihiin oo waxay sugayaan in goolna ha ahaatee bal barbaraha iyagu keenaan si qurux badan ay ciyaartu u socotaa ciyaartu ciyaar la saadaalin kara maaha waa ruug cadaayadii hore ee kubadda cagta iyagu ciyaari jiray iminkana noqday suxufiyiin kala noqday dhanka kalena ah isagu kooxda xidigaha geeska tarabuun dumar iyo rag iskugu jira ayaa iyagu garoonkay soo xaadiriyey بدل 3 دقيقة يا لو قدر عيارته 3 دقيقة
kubaddaasi waa ay socotaa dhexda ayay maraysaa kooxda suxufiyiinta somalilan kooxda suxufiyiinta ayaa wadata kooxda suxufiyiinta ayaa wadata waa gooliyebar ay ku wataan kooxda xidigaha geesku kooxda xidigaha geeska ayaa iyagu gooliyebar ku wata kooxda suxufiyiinta somalilan 3 daqiiqo ayaa ciyaarta lagu daray 3 daqiiqo ayaa iyagu ciyaarta lagu daray si qurux badan ayay ciyaartu u socotaa dhex maraysa labada kooxood ee suxufiyiinta somalilan iyo kooxda xidigaha geeska ayaa koobka la guddoonsiin doonaa bedel kale ayaa taagan waa gooliyeber masdan ayay kusoo idlaan doontaa oo koobka waxaa la guddoonsiin doonaa kooxda xidigaha geeska waynu eegi doonaa bayrof ayaa filayaa inuu rabo inuu mar kale isagu dib ugu noqdo ciyaarta oo fursad khatara ayaa ay cuneen kooxda suxufiyiinta somalilan waa gooliyeber ayay ilaa haatan ciyaartu maraysaa ay ku gacan sarreeyaan kooxda suxufiyiinta kooxda xidigaha geeska ciyaartan ayaa waxaa loogu talagalay in qaadhan lagu ururiyo dadka iyagu daawashadeeda imanaya inay $1 ku soo galaan halkaa $1 la siiyo oo loogu talagalo ama la siiyo laguna tabaruco dadka iyagu tabaalaysan ee abaaruhu ay saameeyeen cabdiraxmaan oday goolhaya boqolle kubaddaasi waa ay socotaa kubaddaasi waa ay socotaa xasan dhuxulaab saalax cabdiraxmaan oday xagga hore ayaa uu kubaddaasi geeyey waxaa wata kubaddaasi bayrof ya salaam bayrof ya salaam bayrof offside ayaa lagu qabtay anshax ayaa offside lagu qabtay kubaddaasi offside ayaa lagu qabtay ninka loo yaqaano anshax ciyaartii waa ay dhammaatay dhex maraysay labada kooxood ee kooxda xidigaha geeska iyo kooxda suxufiyiinta somalilan waxaa haliyeber ku adkaaday oo ku badiyey kooxda xidigaha geeska goolkaasi oo u dhaliyey ciyaartoy caydaruus waynu eegi doonaa koobka marka la guddoonsiiyo ilig waa uu hambalyo bixinayaa beritoole waxaa ciyaar aad u qurux badan ee ka jirta hargeysa stadium ciyaartaasi oo dhex mari doonta labada kooxood ee kooxda ciidanka goodirka iyo sidoo kale kooxda xidigaha cirka ama duulistiya hawada waa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka isdhexgalka dhalinyarada kooxaha heerka koobaad ee jamhuuriyadda somalilan oo beritoole noqon doona maalintiisii u dambeysay waa gooliyeber ayaa ciyaarta ku soo idlaatay tarabuun aad u fara badan ayaa iyagu soo xaadiray in ciyaartan maanta labada kabtan ayaa kala ahaa xasan dhuxulaab saalax labada kooch ayaa kala ahaa xasan dhuxulaab saalax oo isagu markii dambe bedel ku soo galay iyo sidoo kale cabdi good oo isagu watay kooxda suxufiyiinta somalilan ciyaaraad qurux badan ayaa iyagu meesha ka dhacday sawir wadareed ayaa la gelayaa
way dabaaldegayaan kooxda xidigaha geesku kooxda xidigaha geeska ayaa iyagu dabaaldegaya kooxda xidigaha geeska ayaa iyagu dabaaldegaya oo jamaahiirta waxaynu eegi doonaa waxaa la ballan qaaday in ciyaaraha soo socda waa marwadii koowaad ee madaxweynaha hore ilaa naxariista ee mudane xaaji maxamed xaaji ibraahim cigaal